sidaas darteed walaalayaal caalim min alculamaa almuslimiin ayaa waxaa laga soo warinayaa inuu yiri arinkan qofka aqliga leh oo kali ayaa u fiirsanaya. wuxuu yiri boqorada iyo ilmahooda haday ogaan lahaayeen waxaan anaga haysano aan qalbiga ku haysano la jaadaluna bisayf, waxay nagu la dagaalami lahaayeen sayf. waxaanu haysanana waxay tahay waxa hadda aan ka hadli doono. bismillaahir rahmaanir rahiim, alxamdulillaahi rabbil caalamiin, ثم الصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. ولا ليالكسو دوادا حلقة لبعض أنا وهل لني أفرت الشيء هدي لجوا يقف البو شخصي دون كان يكون أو إنسان وخساري أريد سينصو شغني خسارة دي وقف كسو خسارة يا ولا ليال بإذن الله الباري خف بالأدنى ما إنه خسارة أو رابو مجرو سيدس أي تهاي أفرت الشيء أيام متكي وهري أيام كهالينا إن شاء الله بإذن الله الكريم. خسارة لقى هالله يعني أرنتان كسابسن وخسارة هدي لجوايا بتاتا بقفكاس الدنيا آخرة وسن أرنتاسي ليمانين أفرتان شيء وخسارة لأن أرنت كواد هدي لجوايا قفكا إنسانك أو خسارة يعني إنسانك أيان رهيا سيف عنو فير صدام إنسانك قفك بشرك أو إنسانك هدي لجوايا وخسارة. أرنت كواد أيا وحيتها علمي سيدا نقصونه ولا ليال علمي وأود يعني آمين سنة ومسها آمين سنانين. قال يا مسلم بني آدم كلهم وحي اسكو اتفاقين علمي إنو يهي أود. سيدا درتد أود qof walba oo cilmi adeegsada cilmigaas oo awood ahaan u adeegsada dadka ugu wanaagsanaa ee cilmi awoodiisa adeegsada ma ahayn dad awooda ka imaaday xaggooda maysan ahayn mana dhici doonto dad lamida dadkaasi inay imaan doonaan laakiin waxaa jiri jiray dad isticmaali jiray awood aysan ayaga lahayn. haddana waxaa jiro dad dadkaas wadadoodii qaaday oo awoodii isticmaalaan mid lamida isticmaala laakiin يعني نتيجة أيسن اسكميت كأهين وإذا رخي بصدقنا وحا أولا جيدا وحا أولا جيدا ولا ليال علمي وقفك بن آدم كأذيك سنيو وحا يعني رادو أما أصلو مال وكسو قرانيو قالها هذا مسلمها هذا دينك لها هيستو هادو علمي أود شيغانايا مال أيو كسو قرانيا. haddaad doonayso inaadan adduunya aakhiro aadan khasaarin arinta koowaad ee laga rabo inaad haysato ayaa waxay noqonaysaa cilmi weeyaan walaalayaal. cilmigaasna walaalayaal yani uma jaan qaadayo uma sahal dhigayo kuma yani xirayo cilmiga ay dadka ma aragtay khaar ee adduunkan ku naaweeloobay adduunkan ku raali noqday cilmiga ay dadka ka dhaadhiciyaan ma aha cilmigan ka hadlayo. cilmigan ka hadlayo walaalayaal haddaad maqashaa cilmiyo dhan yani wuxuu ku soo koobmaya wuxuu iskugu soo aruurinaya waxa weeye waa macrifatullah macrifatu nabiyihi macrifatu diin alislaami biladillah. نعم علمي هداد مقشا ولا ليال وحكو سو أروريا واسكوغو إيمانيا سدحداني شيء أما أفرتاني شيء قفكي مركا لغاوايا أفرتاني شيء خسارة دي سكوات أيا بلابانيسو مالين والبا أما مر والبا لغاوايا أفرتان شيء ميدك ugu horeeya ama mid kamid ah waxaad noqonaysaa mid khasaara marka arinta koowaad waxay tahay walaalayaal cilmi weeyaan. cilmiga idin sheegay walaalayaal waa barashada aqoonsashada aaminaada jacaylka isu duleynta Allah subhanahu jalla wa ala. labo waxaa kaloo cilmi lagaaga doonaya ee inaad barato waajib kugu tahay haddaadan doonaynin inaad khasaarto haddaadan doonaynin inaad adduunka ku noolaataa dulli iyo faasiqnimo iyo ma aragtay wada lunsan haddaadan doonaynin inaad wadadaasi qaadaa waxaa lagaa doonayaa inaad cilmi u yeelataa Allah subhanahu wa ta'ala. waxaa lagaa doonayaa inaad cilmi u yeelataa nabigeena Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. waxaa lagaa doonayaa inaad cilmi u yeelataa diinteena islaamka ah adigoo يعني ما عرفتي وكنسانيا صوبا لقيا دليل صح دليل كاسو آتك كينيسيد أما آتكسو جان قادنيسيد كتابك إلهي سبحانه وتعالى نبينا صلى الله عليه وسلم حديث ديسا
aaxaadka ama haato ama mutawaatirka ha ahaato iyo diinteena islaamka ah oo kaamilka ah oonan nusqaan ku jirin oonan ma aragtay u baahnayn wax lagu daraa waxna laga naaqusiya kama qaala caza wajalla fi kitaabihi alyawma akmaltu lakum diinakum waatmamtu calaykum nicmatii waraditu lakum alislaama diina. walaalayaal tafaasiil aad u fara badan ma gelayo sababta waxaan rabaa videoyaashan inaan aad iyo aad u yareeyo ayaan rabaa, laakiin khasaare adduun iyo aakhiro waxaa helay la isku itifaaqay yaa isku itifaaqay dadka qaar ayaa isku itifaaqay bini aadamka oo dhan iskuma itifaaqin xataa hadday og yihiin iskuma itifaaqin maxaa yeelay waxaan laga hadlayo waa wax xaqiiq ah ma aha wax mala'waal ah saa hore idin kugu sheegay oo adduunkan bas ku eg waa wax ku daba soconayo ilaa aad ka gaartaa meeshii lagugu talagalay. adiga waa lagu keenay adduunkan waad imaaday adduunkan adiga qaabka adduunkan u socdo ama loo maamulayo ama adduunka ku xigo xayaatul barzaqa ama khabriga si loo maamulayo maalinta yawmil qiyaamah si loo maamulayo adiga mid ku taala ma aha. adiga waxa ku taala waxay tahay oo kaliya saad uga badbaadi lahayd marxaladahan bil aadanka ay marayaan saa uga badbaadi lahayd. arintaas weeyaan arinta aan doonayo inaan idila qaybsado walaalayaal. ilaahi subhanahu wa ta'ala ha idin xifdi. intaan walaalayaal way isku xiran yihiin daliil la'aan lagama yeelayo ilaaha aaminsanahay ama nabi sallallahu alayhi wasallam aaminsanahay. daliil la'aan lagama yeelayo diin islaam ayaa haysta waa inaad daliil u haysataa. daliil la'aan lagama yeelayo nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam ayaan aaminsanahay. maxaa yeelay walaalayaal bini aadanka Allah subhanahu jalla wa ala aqli ayuu nasiyay. ilaahi subhanahu wa ta'ala quraankiisa waxyaalo badan ayuu muxuu ku sheegay aayado badan la'allakum tatafakkarun la'allakum ta'qilun. ilaahi subhanahu wa ta'ala la yadhlimu an-nasa shay'a. ilaahi subhanahu wa ta'ala bini aadanka waxba uu dulminayo malahan. ilaahi waxaan ka baryayaa bi asmaa'ihi al-husna wa sifaatihi ula kuwa laga helo arimahan iyo ma aragtay cilmigan awoodda ku salaysan ilaahi ha naga dhiga. walaalayaal la soco حلقة كحكت إلهي وحن كابرينا توفيق إلى نوافجسد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وجزاكم الله خيرا.